الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مركبور إلهي سبحانه وتعالى مهد اسكالي أو نعمين نعموين كيسان سوكو بكرين ربي سبحانه وتعالى قرآن كيسوحو كليه. وأما بنعمة ربك فحدث. إخواني، وحان جونا عاوة مقايد الصحابة مقالة القاهرة مدينة النصر وعاوة أن أقولنا أنا إيو علمدي أو ضرك مصر كلمة وحاقمنا إنا ميشان أن كسو جيدينو أو موضوع ويهي فضل القرآن كأوليهي. إنت كلمة أن قرين وحان أو آيات قرآن نوغو فرايا ولكن القارئ الشيخ عبد الحكيم إسماعيل فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله فقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاه الله خيرا. شيخ مهسنيهي إلهي هنقل وكوي إلهي سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني سيدهوريان أشيغني موضوعنا عاوحو يهي فضل أوليه قرآنك. إلهي سبحانه وتعالى قرآن يسعود إليه والذين أوتوا العلم درجات، والذين كوي أوتوا العلم علم لسيه درجات أي بيده علمك فضل أوليه فضل نعاو أنك أن فضلنا لكم السوكو بكرو، لكن وحا الله ربا إن علمك أن كددا له أو أن فضلنا ميشان وحا الله ربا إن معناه أن كلا فائدة سنة صوت وضدك أنك أن لفظي ودكتوراه ضد دكتوراه ضد علومدي أن لفظيها سيدا مركا علومدا أن لفظي سجوني على الله الله علومدا مركا أو أديك نريار لفظي سجوني على الله الله ما إن ما تانيك أن وح إلين جيريو أو ما تانيك إلينك إيجا فائدة ستان إلينك ربا إنا إلينك فائدة سو ما دام ما أنت دكتوراه إلينك أتيهن أو ضدك جامعي ودنك أكوض بعدين. marka mawduucan wuxuu yahay in quraanka aan la saaxibno fadliga quraanku uu leeyahay ma la soo koobi karo. waxaan ugu filan xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam, xadiid Uthman macruuf waa khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu. waxa idinka khayr badan qofkii quraanka bartay oo dadka sii farisay. marka quraanka hala la saaxibo, quraankana ha lagu dadaalo barashadiisa. tan kale culimada waxaan ku faraxsanahay oo caawi ii sheegeen inay macallimiinta magaalada ay yihiin oo dugsiyada ay dhigaan
dugsiyadii dhigaan waxaa kale sii dheer inay online qur-aanka ay ku bixiyaan oo kutubta ay akhriyaan oo dadkii oo maanta min kulli fajin camiiqin kala joogay oo qurbaha caruurtii soomaalida ayoo qaahiro joogaan inay u faa'iideynayaan dadkii waaweyn ay u faa'iideynayaan kutubta fanniga oo dhan ay akhrinayaan sida ay ii sheegeen fiqigaa la akhriyaa axaadiistaa la akhriyaa qur-aankiyaa laga saxaa caruurta maanta waxaa waye social mediaha dadna waxay u isticmaalayaan meel xun dadna waxay u isticmaalayaan in ayaga oo diintii ay ku faafiyaan ay dacwadii ay ku wadaan aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa taas waan ku mahadsan yihiin macallimiinta caawa waxaa fiinaan lahayday in howlkan ka sii weyn aan iskugu ballansano oo inta oo jaaridda oo magaalada qaahiro joogto oo dhan caawa la isu keeno ahayday insha allah taasna waan rajaynaynaa inaan isku keeno oo hal mar aan wada fadhiisano dhammaanteen waa aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin culimmada inaan maanta aan ku kulanno magaalada qaahira aad iyo aadaan usoo dhaweynayaa waad ku mahadsantihiin sida caawa ii soo dhaweyseen jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu جزاك الله خير شيخ عبد الوهاب inaga soo booqday xaggaasi ariga Canada oo booqashay dowlad jooga ayaa kelmadii inoo soo jeedinayay oo waana ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku waanada ku qaata in Allah inaga dhigo dhammaanteen inta meesha joogtay inta dhageysan doonta ama inta arki doontaba sheekha waxaan leeyahay Ilaahay